16 sano oo ay daadiisu jirtay ayuu leel daran yahay xanuun ka haleelay isaga oo yar dhinaca maskaxda taasi oo sababtay inuu cuno waqtiyada qaar jidhkiisa ama waxyaabo kale oo dhibaato ku keeni kara sida saxarada hadiiba laga ilaalin waayo wiilkan yar oo wiil ka xanuunsanaya dhimirka isla markaana ka soo jeeda qoys tan yara oo ku nool magaalada Gabiley waxa aanu ku buuqanay hoyga ay ka degan yihiin magaalada Gabiley wiilkan yar oo xanuunsanaya muddo badan ayaa waxa nooga warbixiyay Firdawsa Maxamed oo ah hooyada dhashay isla markaasina haysata qoyskani dan yartay uu ka soo jeedo wiilkan yar ee aadka u xanuunsanaya waxayna nooga warantay xaaladaha adag ee nololeed ay ku nool yihiin iyadoo taasina ay u dheer tahay xanuunka wiilkeegani yar oo dhimirka ka xanuunsanaya isla markaana dhibaato badan ka haysato hooyadani ayaa waxa ay si naxariis leh ummadda islaamka uga codsatay in laga soo caawiyo sidii ay cisbitaalada ama xarumaha caafimaad u geyn lahayd wiilkeegan yar iyadoo sheegtay inaanay awoodin nolosha si kastoo ay ahaataba isla markaana nolol maalmeedku aad ugu adag yahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullah waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka in ka yar xanuunsanaya oo dalay magaciisa Xasan Cabdi Leeyda dalka gudihiisa waxba dhakhtar uga waayay isagoo 6 biloodana xanuunkaasi helay imkana 15 jir ummadda islaamka meel waliba ku nool yihiin waxaan ka codsanayaa in uu heli karo inuu caawiyo 6 bilood buu xanuunku isagoo abu helay imkana waa 15 jir meel walba deynta dalka gudihiisa waa la maray waxba waan waayay waxta caafimaad hadda kor lama kulmin dalka gudihiisa wax kale oo ku meelaha kale ku geeyana waan waayay waxaan ka codsanayaa meel waliba ku nool yihiin walba wuxuu heli karo inuu ku karkaaro ninka yar xanuunsanayo waxba aan u haynin سجاونا فردي قبح سنة يا يمكن حنو كسي بيري مع صندوق أنا مركان قبحه هل كان منا فردي وحده وما قام كريو وما تسلم كوحن كسوع سنة يعني ولا بالكو كنوا لي هنا هل بحكران الصدقاء هنا سوق هاوية سكرية نوح إبراهيم عاد كبرق أفريقيا قبل كجبيلي